waxaan ku soo gaaray fanka ixtiraam isagoo leh waxaan ku soo gaaray iyadoo gabdhaha wiilashu ay saa u sidaan riwaayadaha markaan qaadno nooma ogolaan jirin wiilasha inaan shaaha iyo aan soo gadano oon degno baabuur ka degno shaah doonan wiilashaa noo dooli jira dadku waxay arkeen dahab waa la helaa oo dhulkaasaa laga qodaa oo wasakhiyaa laga dhigtaa ama silsilad dumarka ku xidhaan laakiin quraarad dahaba weligiin ma aragteen quraarad dahaba wax arkay ma jiro quraarad dahab laga sameeyo hadda dhala gedigeedaba dahaba oo samaysan adduunyada weli laguma arag fanka Soomaaliya hadda waa dhala dahaba dhalada dahabka ama quraarada dahabka qofkii naga jabinaya anigu ma doonayno dadweynahan hanuuninaha saawina danta ku xigna waxa markay fanaanku waajibkiisu yahay dadweynaha inuu hanuuniyo maxaa lagu hanuuninayaa wax kasta xumaana waa laga hanuuninayaa wax kasta wanaag waa lagu hanuuninayaa fanaaniinta meel walba ay joogaan anigu waxaan leeyahay horta waxaanu nahay farqura on kala maarmin oo aanan kala maarmin fanaanka gabadha iyo wiilka shacabka ayaga isaga sokeeyaan oo isku dhow labada qofood oo isku dhowna waa walaalo dadku sidaas u yaqaanaan u maleynaa marka labada qofood oo isku dhow haday iskhilaafaan dafan ma bajiri kara baan istaan qabo taas waa dadkii hore iyo fankii hore kan dambe waxyaalo badan baa iska jira laakiin hubiyaha ka weyn waan ogahay inaanan isku nasiib ahayn dadkii hore iyo dadkan dambe laakiin hubiyagii ayaa kalifay inaan waxba aan waxba arkinba waxaan ku leeyahay maandhow qeyr Allah ku siiyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo geed gaaban iyo geed dheer adiga fanaan ma tihid waa ku duceynayna afar lagu marima faataxa ma jirto qeyr Allah ku siiyo fanaaniinta iska dhaaf nabadgeli dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu qorayaa ragga inay hoggaan yihiin oo dumarka ka xishoodaan anaga gabdhaha isku keenay daray way ani shaxlay inta jara war iiga sheegtay ma malay karayso ani ida isu sheegna hadda sida labada baal camal filmada hindiga fiirso jirna camal labada taltaliin ku jira camal ana Soomaali baane sax waa qofka Djibouti jooga waa Soomaali isku afbaanna ka Kenya jooga isku afbaanna ka jooga kilinka shanaad isku afbaanna heestaan inka qoro aan gudbiyo kulligood way gaadhaysaa meel af Soomaali laga hadlo inta fanaan ka joogta adduunyada hadda kilibkayga daawadaan waxaan uga digayaa inay iyagu isku xidhnaadaan oo aan ay soo dhaxgelin meeqa fanaan baan anigu isku dhacnay maaha faadimiina kaligeed stage hadaan u soo koranay adiga un baa igu diraya gabadhaasi laakiin waan ka raali geliyay waana ka heshina laakiin qof walba fanaan ah kaaga daranay hadii ragga hadii la isku diro dib ma laha dumarka la isku diro ma wanaagsana hadalku waa lay bedelay fanaaniinta la igu soo dhirbaaxay anay isoo weydiiyeen iyagoo xanaaqsan waliba mana dhihi kara aniga jiiraatin iyo basadaatiin sababta aniga isku mid baan nahay haday jiir eegaan dhaho ana jiirku maana ama bisadii aan ku sheego ma la ah tacaagu yuu noqon madaxumaan ka marakaca sida macaawisaha qaar nimba maaliyo xidhan hadba kii muraad leh hawga dhigin maqaar saar mar waxa dadhamisiyo mijin qaada ha u dhiman ha ka talin masiibiyo wax maqluuqa kala dila maskaxdaadu yay noqon maqal lagu leeyahay yaan taban miftaaxiyo lagu furin masaabiir waxa shalay tamudatiyo mahadnada xusuusno halkii qorigu ka muday mar labaad lugtaadiyo cagtiyaani kula marin maanta iyo dantaydiyo yaan milalku ka lubin maalmaha dambeetiyo waxa maqan ka faalee maamuuska sharaftiyo ka ilaali maydaan